وزير الدولة وزارة waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo safar socdaal ku joogay maalmihii u dambeysay wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu kulamo la qaatay Dr. Hussein Al-Hamadi wasiirka dhaqanka dhalinyarada iyo horumarka ee Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Sheekh Al-Hayyan Mubarak iyo gudoomiyaha jaamacadaha Imaaraadka waxaana ay ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya labada wadan ee Soomaaliland iyo Imaaraadka sidoo kalena waxa wasiir dawladdu ka codsaday in wafti ka socday Imaaraadku ay imaadaan Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri socdaalka aanu ku nimay Imaaraadku wuxuu daarnaa wasaaradda waxbarashada tayeynteeda iyo kor u qaadideeda ayaan halkan u nimay annagoo taageero iyo kaalmo iyo wada shaqayn tii marti uga ah xukuumadda Imaaraadka ina waxa weeyaan waana soo dhaweeyeen oo si wanaagsan baan ula kulanay mas'uuliyiin qaali ah kulankan ayaa waxa fududeeyay agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Dr. Yusuf Ahmed Ali isagoo noqonaya kulankii u horeeyay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ka tirsan oo la yeesho mas'uuliyiintaasi Yacquub Saciid Kuriya Somali News TV Hargeysa